Liverpool ayaa xaqiijisay guul weyn oo 3-0 ah oo FA Cup-ka ah oo kaga adkaatay Brighton garoonka Anfield iyadoo goolasha ay u kala dhaliyeen Curtis Jones, Dominic Szoboszlai iyo Mohamed Salah. Liverpool waxay 3-0 kaga adkaatay Brighton kulankii ka dhacay Anfield maalintii jaceylka Valentino Day. Goolasha ay kala dhaliyeen Curtis Jones, Dominic Szoboszlai iyo rigoore uu dhaliyay Mohamed Salah. Qaybta hore waxay ahayd mid adag oo ay ka muuqatay ciyaar xooggan iyo qaladaad jireed. Lewis Dunk ayaa qaatay kaarkii digniinta ugu horeysay. Liverpool ayaa ugu dambeyn hoggaanka la wareegtay daqiiqadii 42. Curtis Jones ayaa ka faa'iideystay baas sax ah oo uu ka helay Miles Kerkez, kadib si xirfad leh ayuu kubadda u dulmariyay goolhayaha Brighton, taasoo farxad gelisay taageerayaasha. Qaybta labaad ciyaarta, Dominic Szoboszlai ayaa sii waday qaab ciyaareedkiisii wanaagsan isagoo dhaliyay gool qurux badan oo meel fog ah, kubadduna ay gashay shabaqa kadib markii ay taabatay faraha goolhaye Johnson Sterling. Mohamed Salah ayaa ciyaarta soo afjaray si kalsooni leh u dhaliyay rigoore 8 daqiiqo kadib goolka labaad. Liverpool 3-0 Brighton. Gool dhalinta Curtis Jones daqiiqadii 42, Dominic Szoboszlai daqiiqadii 56, Mohamed Salah 64 rigoore. Kooxda Liverpool ayaa si fudud ugu gudubtay wareegga shanaad ee FA Cup-ka kadib markii 3-0 ku garaacday Brighton garoonka Anfield. Ciyaartoyda ugu fiican Mohamed Salah weerar joogto ah iyo rigoore uu si qurux badan u dhaliyay. Dominic Szoboszlai maamulay khadka dhexe kana dhaliyay gool cajiib ah. Curtis ciyaar firfircoon oo uu ku laray gool muhiim ah. Liverpool ayaa hadda sugaysa cidda ay la kulmi doonto wareegga shanaad. 5 Febraayo 2026 kooxda Arsenal ayaa bandhig awood leh u muujisay garoonka Emirates Stadium kadib markii 4-0 ku garaacday Wigan Athletic kulankii wareegga afraad ee FA Cup-ka, taasoo u sahashay inay u gudubto wareegga shanaad. Arsenal ayaa 4-0 ku garaacday Wigan Athletic. Arsenal ayaa si xooggan u garaacday Wigan iyadoo u gudubtay wareegga shanaad ee FA Cup-ka markii ugu horeysay tan iyo 2020. Daqiiqadii 10aad, Noni Madueke ayaa furay goolasha kadib kubad dheer oo qurux badan oo uu siiyay Bukayo Saka, kaas oo markaan ka ciyaaray khadka dhexe. Daqiiqadii 17aad, Gabriel Martinelli ayaa 2 ka dhigay kadib markii ay iskaashi sameeyeen Roberto Eze iyo Christian Norgard. Arsenal waxay si buuxda u maamushay ciyaarta bilowgeedii. Daqiiqadii 23aad, daafaca Jack Hunt ayaa iska dhaliyay gool on goal kadib cross oo uu keenay Saka. Ka hor daqiiqadii 30aad, Gabriel Jesus ayaa dhaliyay goolkii afraad kadib kubad dheer oo sax ah oo uu siiyay Norgard, wuxuuna si degan ugu dulqaaday goolhayaha.